بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. waxaan meeshan ku fadhinaa beesha reer Muuse Gumcadle ee degan gobolka Jubbada Hoose magaalada Kumeel Gaarka ee Kismaayo ee Jubbaland. waxaana soo gaaraya inay dhibaato ka dhacday meesha la yiraahdo Xoday Gaaja oo uu deganaa qabiilkan aan ka dhalanay lana damcay in dad kale la kordejiyo dadkii shacabka oo halka deganaa markay damceen arrinka isaga ah inay ka hadlaan shacab ay ahaayeen ay ka mudaaharaadaan ay muujiyaan inaysan suurtagal ahayn in dad kale la duldejiyo ciidanka new booliska ah gobolka madaxda gobolka Qorraxay dhammaan in ciidankaas xabad aan loo meeldayin lagu furay dadkii shacabka ahaa ee banaanbaxa ka sameeyay halka ayada ah. arrinka markuu dhacay dadna waa dhintay dadna waa dhaawac. markii arrinka uu na soo gaaray waxaan cambaaraynaynaa falka xun ee dadka shacabka ee loo geystay ee abaaraha ay daashadeen ee masaakiinta ah ee halka degan. waxaan rabnaa oo aan doonaynaa oo baaqayna uu ku wajahan yahay madaxweynaha u sareeya maamulka dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cagjar. madaxweyne waxaan aad iyo aad u jecelahay maamulkaaga iyo waxa aad wadanka ka qabatay iyo meeshaad soo gaarsiisay, laakiin hadduu dulmi u dhaco oo dulmi aad samayso kuwii dulmiga sameeyey ee ka horeeyay meeshay ku dambeeyeen waad ogtahay. dadka masaakiinta ah oo dhulkay deganaayeen la duldegay oo xoog in loo adeegsado la raba ee qaarkood la laayay qaarna ay dhaawac yihiin ee ogtahay abaaraha iyo dhibaatada iyo colaadda haysatay inuusan maamulka mid kale ugu darin baan ka codsanaynaa. waxaan cambaaraynaynaa annagoo qabiilka Muuse Gumcadle ee magaalo madaxda Kismaayo joogna falka foosha xun ee faxaashka ah ee dhacay ee dadka shacabka ah lagu waxyeeleeyay dadkaasuna uu ka dambeeyo gobolka Qorraxay gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Kudumbuur gudoomiyaha degmada Ceelogaadeen gudoomiyaha degmada Laaskardhayrle gudoomiyaha degmada Marsi. saad ogtihiin taariikhda deegaanka 83 sano waqtiga laga joogo yaa waxaa la sameeyay degmada Shilaabo degmada Qabdidahar degmada Awaare shaygoosho ka dambeysay. intaa hadda degmo aan sheegay iyo intaa gudoomiye ah oon sheegay waxaa dhashay Qabdidahar. Shilaabo dhanka bariga ee uu dego qabiilka Muuse Gumcadle waa ka Mandhalays weligeed ma dhasho. intaasoo gudoomiye ah waxaa magacaabay qabiil asagoo huwan xukun jaa'ira oo gumaysta ah oo dadka qaarna baabi'inhaya qaarna abuurahaya. waxaa la islahaa waa laga baxay gumaysnimadii iyo isbeddel baa dhashay xornimaa la helay dadku waa isku mid. markay isbeddel dhacana waxaa la rabaa war wixii dhacay muxuu ahaa maxaan ka yeelaa maxaan ka beddelaa. taariikhdu haddayna isbeddelayn oo dadku
TPLF baa dadka leynaysay dadkana ku leynaysay TPLF meesha ay ka baxday dadku waa dad wada dhashay waa Soomaali waa ogaadeen waa isku mid ninna nin galaas ma dheera ninna nin galaas ma dheera waa la xisaabtami deegaanku dadku wuu ka dhaxeeyaa dawladdu way ka dhaxaysaa ciidanku wuu ka dhaxeeyaa shacabku wuu ka dhaxeeyaa nabadgelyadu way ka dhaxaysaa waxaan ognahay bartan hadda la dhibku ka dhacay waxaa istaakulka sameeyey qabiil jidkuu bixiyey sahankuu diray saweynaa laga bixiyey shaaga halkaasaa la mariyey waa la ooday teendhaa lagu xidhay hadda markay joogtaa dawladdu waxay amar ku bixisay arrintan dawladdaa wadata kamana noqonayso waxaan u aragnaa dawladdu qabiil inay tahay miyaanaan ciidanka wax ku lahayn miyaanaan nabadgelyada wax ku lahayn miyaanaan nasabnimada wax ku lahayn arrintaas faxaashka waan cambaaraynaynaa boqolkiiba 1,000 waan cambaaraynaynaa بسم الله الحمد لله وكفى أولا إلهي بمهات إسكاله الله سبحانه قادر كاه نقول إسلامه إهله سوق أنا كاني ميسكنا هدا أنو فدينه بعد المهات waxaanu halkan isugu imaanay annagoo beesha Muuse Gumcadle odayaasheeda waxgaradkeeda aqoon-yahankeeda dhalinyaradeeda iyo dumarkeedaba waxaanu meesha isugu imaanay waxa ka dhacay qarsoonay iyo xoday gaajo waxaas ayada meesha ka dhacay oo maanta na soo gaadhay ayaanu nahay haddaanu beesha nahay ayaanu cambaaraynaynaa waxa meesha ka dhacay ee foosho xun ee dilka iyo dhaca iyo dhaawacaba leh yaanu si guud u cambaaraynaynaa cidda geysatayna ay tahay heer gobol ilaa heer degmo oon u kala hadhin iyo macal ciidankooda niyu ama maleesiyaadba ha noqdeen qabiilaysan shaati dawladeed loo geliyey laakiin aan ciidan dawladeed ahayn ee canaasir la soo ururiyey oo shaati dawladeed loo soo xidhay kuwaasaanu cambaaraynaynaa heer gobol ilaa heer degmo dadka ka soo jeeda magaalada Qabdidahar iyo inta ku abtirsata waanu cambaaraynaynaa waxa ay meesha ay ka sameynayaan iyo waxa ay wadaana wax shaqayn doona iyo wax socon doona midna ma ahan ilaahay idinkiis waxaanu leenahay oonu cod dheer ku leenahay oonu dawladda madaxweyne Mustaf Maxamed Cumar aanu ku leenahay madaxweyne dawladdan adaa xukuma nidaamkan adigu hoos jooga faajirka ee cabdi ilay ka tegay ee horay dad iyo dunyaba u liqay heegadii uu ka tegay weeya waxaan samaynayaa waxaa Soomaalida ku mahmahdaa nin midiya xaday mudaciyadu xadi jiray mudaciyada buu horay u xadi jiray qabaleegan hadda la qorayo ee xaday gaajo qabaleeyaal ka horeeya oo la xaday baa jirta oo aragnay iyadoo aan ogeyn iyadoo la iska dhistay la soola kamida la soola oomane waxaa kamida lafcad waxaa kamida muxuu ahaa tan hadda la qodahayo degmadii shilaabo qabaliyaalkii ay lahayd baa la rabaa in la dul saaro qabaliyaal kale maamulka qorraxay baana wata waxaan u malaynayaa derisnimadii iyo maamulka watirsanihii in meesha ay ka baxayso kama simid ahaan karo xukun faajir ah aanan qaadan karin kamana mid ahaanayno waxaan u sheegayaa beesha Muuse Gumcadle haddaan mid idinka hadhaynin xukunkan xun ee dhulboobka ah inaynaan yeelin kun iyo kow hadday ku dhimanayso waanu idinku taageeranaynaa waanu idinku garab taagannahay in sha Allahna xaqa ayay tagi بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu meeshan isugu nimid
bulshaweynta musuq macadle ee degan Kismaayo waxaanu isugu nimid hawl aanu ka adkaysan weynay oo kaliftay inaan isu imaano oo aanu ka hadalno taasaan doonayaa inaan ka hadlo waxa weeye dulmi aan indhaha laga qabsan karin oo aan la dhowran karin oo ka socda gobolka Qoraxay ka socda weerar la weerarayo degmada Shilaabo la doonayo Shilaabo in laga sameeyo degmooyin kale oo khasaba la doonayo Shilaabo dadkii degi jiray dad aan hayn in la dejiyo oo cusub Ethiopia way soo jirtay waligeed dadka deegaankiisa waa la yaqaana dadku waligii wuu daris buu ahaan jiray dariskii baa la isku dirayaa waxaan suuroobeenin baa la wadaa waxaa la sameeyay oo degmooyin laga sameeyay meel aan degma qaban karin yaa daliyay waa degmooyin dulmi bay ahayd degmadii markay qaban weyday waxaa la rabaa degmadii sii jirtay in midda loo bedelo oo laga soo jaro tuulooyinkeedii daaqsinteedii deegaankeedii la jaro oo degmad kale laga dul sameeyo